السلام عليكم أصحابتeyda sitiin ma fiicantiin maanta waxaan kasoo tuuranay quraacdan yar ee quruxda badan leh maasha Allah saa soo baxday soo dhawaada asxaabteyda kuwa cusub ee igu soo biiray kuwa hor ila jooga intiina waa mahadsantiin soo dhawaada cashirkan ka dibageyna ha ilaawin channelkeena subscribe saartid like noo saartid aad iyo aad baa mahadsan tahay jabaatigan aan soo qaaday waa ku soo tabcay waa soo xashay xoog baa soo xashay marka mashiin galinaysid waa wax fudud laakiin marka gacanta ku soo xashaysid ay hawl dheer wey waan soo xashay saanay soo baxday u jeedaan softi haddana saliid baan dhikada ka mariyay waxaan rabaa inaan soo saaro jabaati aad u qurux badan oo jilicsan hadday doonto qurux badnaan laakiin jabaatku inay jilicsanaato waa muhiim hadday jilicsan tahay way iska qurux badnaanaysaa soo haddana saas u soo duuduubay qiyaasta intaa jeceshahay karso aniga intaan jeclaa ayaan soo samaystay burka qiyaaso intaa tahay haddii aad hal qof tahay iyo haddii aad laba qof tahay iyo haddii aad family tahay adaa lagaa rabaa inaad qiyaasatid soo waan soo kala bixiyay saliid baan soo mariyay saas isugu sii laabay haddii aanan sidan u sameyn jabaatiga maba cuni kariba laakiin dadka qaar ayaa ii sheegay isku laabin laakiin anigu isku soo laabaa sababtoo ah inay jilicdo ayaan jeclaa wadana jabaatikeeni dabkan soo saaranay midhmidh ayaa inay tuso rabaa insha Allah xoogaa inta hore ku hor intaan dudubay ayaan tusayaa haddana hal xabaan saaray saanay u casaatay haddana xabadan kale aan saaray labada xabbe hore masha Allah ayaan tusayaa saa quruxda badan way ku soo baxday soo aroor way iska fiicantahay goor hore inaad soo kacdid oo wax family-ga cajabiye aad karisid oo lagu quraacdo oo haddana farxad laga qaado quraaca qaar baa markaa karisid laba farximay laakiin quraacda qaarkood markaad karisid masha Allah dadka waxay ku dhahayaan ku soo celi quraacdaas quraac hebel quraac aroor way macaaneede soo marka maanta waa iska soo kacay goor horaa soo kacay markaa salaada galay maba ku noqonba waxaa jeclaystay inaan soo dubo jabaati qurux badan iyo wixii alla keenay kale ee lagu soo daro muhiim maaha inaad ii sheegay cuntadaan aan karinayo aadna aa karisid aroor hore kac waxaa haystid kari way ku qurux badnaanaysaa wakaasaa maasha Allah sida jabaatiga badanka dadku iska jecel yihiin kole aan waxaan ka mid ah dadka iska jecel adiguna haddaa jeceshahay comment-ka xagga hoose noogu soo qor dad qof neceb arkimis jabaatiga waa la wada jecel yahay soo xabadii labaadna saasay duumatay saas u soo bislaatay oo qurux badnaatay sidaa quruxda badan lay soo noqotay ee casaankaas oo dhammaanteed waxaan ku soo guray bilaad kale aan ku soo guray jileecana lagama shakeeyo wallaahi qurux bay soo baxday indhahaaga ayaa ku macalina maalin dhow mid aan degdegsanay ayaan soo galay haddana waxaan sir asxaabta tan uga gaarsii maadaama maalin dhow mid degdeg aan soo galin oo casaana inay casaan noqotona taa oo maalintii waa degdeg soo galay ugu talagalay laakiin tan casaan baa ugu talagalay jabaati baa ugu talagalay waana kasoo sameeyay maasha Allah asxaabta soo dhamisayna way kasoo comment kasoo bixiyeen comment dabkan soo shiday shaah yar baa isku saaray shaah hal mar baa isku wada daraa degdeg baan qabaa soo waxaan isku jecelahay inaan shaah hal mar isku shubo soo hal mar baan garhka isku geliyay haddana keligan aan soo qaaday waxaan rabaa inaan ku shubo kana keligan quruxda badan leh dhowbkiis way iga jabeen laakiin koobkan baan haystaa waxaan haystaa keliga oo keliyaan haystaa soo marka waxaan rabaa inaan maarta shaah yaro qurxiyo ayaama wax qubqubis la iga soo taagay yar yaro qubanaya laakiin dhowtaa ka tirtiraa maasha Allah maanta routine ma la dhahaa routine dadka qaar routine ayay kusoo qoraan laakiin aniga aroor qurux badan ayay kusoo qoraan haddana beergeel baan soo qaaday maasha Allah saas uu qurux badan u weyn yahay kuriskiisu wataa waa soo dubanay isagana intaan soo jarjartay intaas cidna ka ambamayso isku jarjaran waa basashi iyo yaanyo iyo bambaroon iyo baamiye ayaan isku soo jaray
soo xarabna inaan beergeel qurux badan kasoo tuurano. Beer ari muusan ahayn, beergeel kurus hadaa aragtidba beergeel weeye. Soo dadka qaar baa jecel laakiin aniga beer arigaan xoog u jecelahay. Saaka kana ii yaalay waa iska soo kariyey wakana macal kurus kusoo jarjaray casaande macal kuruskiisa waan kusoo jarjaray. waxaan rabaa cabaar inaan shiilshiilo. aad buu u fiican yahay maasha Allah. beergeelku wuu fiican yahay, caafimaad weeye, laakiin ka ariga ayaa ka macaan. anigu ka ariga ayaan ku haystaa, laakiin saaka waxaan isirahee maadaama kii arigu uusan ku imaanin, uusan ku olin fridge ku jirin, kanoo markaa aan soo gaday fridge kama soo saarin ayaan insha Allah soo bisleeyay. sidaas aragtid baan u soo bisleeyay. haddii aad taqaan qaabab kale loo karsado nala soo wadaag, xag hoose noogu soo dir. wax faa'iideyntu waa la iska kala faa'iideystaa, maaha kaliya qofku inuu channelka isagu faa'iido uu kasoo gudbiyo, idinkuna faa'iido waa noo soo gudbin kartaan, soo gudbiya asxaabta. wakana shamcada caada qurux badan la kusoo guray, saanuna soo baxay, kuruskaana uu kusoo sareeya. waaw, waqti badan iguma qaadan maasha Allah. assalaamu calaykum waraxmatullah.